السلام عليكم waxaan rajeynayaa inaad fiicantihiin meel walba oo iga daawanaysaan hadda maanta waxaan idiin wadaa qisada fanaanad u dhalatay dalka Pakistan aan bilaabo Ghazala waxay ku dhalatay waqooyiga dalkaasi Pakistan gaar ahaan Swat Valley taariikhdu markay ahayd 1988 waxay ka dhalatay famil ama qoys aad sabool u ahna muslim ilaa yaraanteedii Ghazala waxay ku hamin jirtay inay noqoto qof caan ah oo dunida afarteeda garja laga yaqaano labana inay noqoto qof hanti leh oo qani ah taasoo ah mid dadka badankii caalamkan ku nool uu ku fikiro qof walba wuxuu jecel yahay inuu noqdo qof caan ah oo dunida geesaheeda laga garanayo iyo inuu noqdo qof qani ah ama hanti leh oo bini aadam iyo bariyadiisa iyo baahidiisaba ilaahay ka qani yeelo ilaa yaraanteedii waxay ku fikiri jirtay siday ku noqon lahayd qof qaniya ay faqrigan ay ku nool yihiin ay uga bixi lahayd una noqon lahayd qof caana balse maysan garanayn meesha ay ka bilaabi lahayd maxaa yeelay wax walba waxay leeyihiin meel ay ka bilowdaan Ghazala wuxuu ilaahay ku manaystay cod aad u macaan oo ilaahay hibo u siiyay intaasoo kaliya ma ahan ilaahay wuxuu siiyay qurux waxay ahayd gabadh aad u qurux badan raxmaankuna ugu deeqay hibada codka marka waxay bilowday sanadku markuu ahaa 2004 ay go'aan ku gaadhay inay noqoto fanaanad iyadoo waalidkeed la tashatay ridaha iyo raali ahaanshaha waalidkeedna qaadatay waxay ku tiri aabba iyo hooyo waxaan doonayaa inaan noqdo fanaanad inaad ii ducaysaan oo raali iga noqotaan marka waalidkeed way u ogolaadeen 2004 waxay bilowday fanka ay ku soo birtay iyadoo markii hore xaflado yar ka heesi jirtay maadaama ay ahayd fanaanad cusub Ghazala Javed markiiba way soo caan baxday markii ay sida fanka u soo gashayba markiiba waxay noqotay caan halka magaaladii ay deganaayeen wiilashii joogay ay isku dili jireen gabadha waxay ahayd gabar qurux badan codkeedu aad u macaan yahay da yarna runtii markii ay muddo waday fanka muddo 3 sano ay ku jirtay fanka lacag badan ay ka samaysay magaceedu meelo badan uu gaadhay waxaa yimid magaaladii ay joogtay ku noolayd koox diineed baa ka bilaabatay aad xagjir u ah oo adag oo u diiday dadkii heesihii dadka dhageysanaya heesaha iyo dadkii heesayayba way u diideen heesihii waxay kale bilaabeen inay xidhxidhaan qof walba oo hees dhageysta iyo qof walba oo fanaan inay soo xidhaan marka iyadoo ka walwal qabtaa in iyadii familkeedaba la dhibaateeyo ama xabsi la geliyo ba waxay iskaga soo tagtay magaaladii ay ku noolayd ee ahayd maxay ahayd magaaladii walaalo maxay ahayd waxay iskaga soo tagtay Swat Valley waxayna u soo wareegtay Peshawar iyadii familkeediba ay u soo wareegeen halkaas ay ka sii waday wali heesihii iyo maaragtay rumaynta riyadeedii waxay noqotay qof caan ah waxay bilowday inay wadamo badan isaga gooshto iyadoo markii dambe dakhliga soo galayay uu gaadhay habeenka inay xaflad ku samayso lacag u dhiganta $12,000 ilaa $15,000 habeenka kaliya habeen waxay qaadataa hal habeen haday soo shaqeyso hal bilow iska seexan kartaa way ka baxeen faqrigii familkeedu iyaduna riyadeedii way rumaysay waxay noqotay gabadh caan waa aad caan waa dadkuna ay wada jecel yihiin lacag badanna samaysa kadib waxa dhacday hooyadeed waxa u yimid nin taajir ah oo ganacsada ah leh guryo fara badan iyo dhulal badan wuxuu ku yiri lacag inta doontaan ku siinayaa ay waxaan doonayaa gabadhaada inaad igu dartid hooyadeedna maba aysan ka labayn ee hore ka ogolaatay wuxuu u keenay waraaq si sharciyana labada qof markay isguursanayaan ninku waa inuu waraaq soo saxiixo gabadhuna soo saxiixdo kadibna la isu meheriyo labada qof markay waraaqdaas saxiixaan waxay ka dhigan tahay laba qof oo isu doonan ay u dhiman tahay kaliya in la isu meheriyo oo aroos ka dhigtaan waxay ku tiri waraaqda soo qaad waraaqdii buu u keenay gabadheeday u geysay marka Ghazala waa gabadh ummiyad ah waxna ma qorto waxna ma akhriso bointiga isaga ama qodobka isaga ah iyadoo hooyadeed ka faa'iideysanayso ba waxay u keentay gabadheeda waraaqdii waxayna ku tiri hooyo waraaqdan saxiix markay weydiisay ku tiri hooyo waraaqdan maxaa ku qoran waxay ku tiri waa xaflad aan doonayo inaad maartay ka qayb gashid oo dad ba ku soo codsaday marka iska saxiix wax weyn ma aha qofku markuusan aqoonin sida wax loo qoro ama sida loo akhriyo inta badan wuxuu sameeyaa meesha qalinka intuu qaato uu wax ka saxiixi lahaa wuxuu suulka saaraa ama fartiisa saaraa waraaqda taasoo ka dhigan shaabad qofkaas inuu saxiixay ama ogolaansho qofka laga helay kadibna gabadhii suulkay saartay waraaqdii
sidii bay hooyadeed intay ku qaaday ninkii ugu geysay kadibna waxaa ka war heshay gabadhan inay tahay gabadh nin u doonan ninkaasuna nin yar ma aha waa nin da weyn oo iyada aabba ma aha awooba u noqon karay nin weyn ah iyadana waxay isjeclaayeen wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Salim Khan marka iyada ah way qaracantay way aamini weyday kadibna waxay go'aansatay maadaama oo qofkii ay jeclayd ay heli weyday qofka khiyaamay ee maaragtay qorshahan u maleegayna uu hooyadeed ahaa nolosha inay isdhaafiso oo isdisho way isku dayday inay isdisho laakiin ma aysan suurtagelin muddo kadib iyo isjiijidad badan iyo qaracan badan iyo niyad jab badan kadibna way iska ogolaatay maxay dhinacay u dhaafta ma lahan waa familkeeda dhinacay meelay ka aadaysa ma jirto way iska ogolaatay marka ay taariikhdu ahayd 7 bishii Afraad 2010 baa waxaa loo dhigay Ghazala xafladda arooskeeda ninkii baa aroostay oo guursaday kadibna wuxuu u hooyay gurigii uu diyaariyay maalmo yar markii ay ninkii wada noolaayeen wuxuu bilaabay inuu ku dhaho xafladaha iyo heesaha iskaga gabi ahaanba Ghazala tii way ka biyadiiday Ghazala guurkeedii ma uusan noqon mid waara 2011 markay ahayd ay bilooyin yar ninkii la nooshay intaana uu ku hayay waa inaad iska daysid shaqadan aad ku jirtid ee inaad xafladaha aadaysid iyo heesahan iyo waxan oo dhan aad iska daysid iyana aysan wali ogolaansho buuxda siinin baa waxay ogaatay ninkeeda inuu qabo xaas kale oo iyada ka horeysay iyana ay tahay xaaskii labaad kadib oo ahayd khiyaanadii labaad ee lagu sameeyay maxay markii horeba hooyadeed baa khiyaanto ninkan faraqa u galisay iyadoo iska diidan guurkan dhinacay u dhaafta markay weydayna ay iska guursatay wax walba ugu dul qaadanaysay markay ogaatay inuu reer iyada ka horeeyay leeyahay way diidatay inay kula noolaato waxayna dib ugu soo noqotay guriga hooyadeed iyo aabaheed waxay aaday maxkamadda 2011 markay ahayd waxayna ka dalbatay waraaq furitaan oo ninkan iskaga furayso maxkamadda isla markiiba u soo ogolaatay oo ninkii way ka furtay iyadoo dib ugu noqotay shaqadeedii heesaheedii iyo masraxii ay joogtay dib ugu noqotay kuna faraxday in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninkan balaayada ah musiibada ay hooyadeed markii horeba ku soo hagtay ku xidhiidhisay in Ilaahay ka furfuray ninkeediina uu bilaabay markii maxkamaddii ka furtay inuu ka xumaado inay fankii uu ku lahaa iska daay dib ugu noqotay iyo inay iska furtay labadaba isagoo ka xun aadna uga masayrsan ragga iyo dadka iyo ku hareeraysan wuxuu bilaabay marka inuu ka arguto inuu go'aansado inuu ka arguto si wado walba uu sameeyaba inuu ka arguto wuxuu ku sameeyay waa la iska joogay markii ay ahayd 18 bishii 6 2012 baa wuxuu u soo kareystay niman tuuga ah oo hubaysan u soo hubeeyay lacag buu siiyay hub buu siiyay wuxuuna ku yiri naagta sandoonaya inay soo dishaan iyada iyo hooyadeed iyo aabaheed gabar ay walaalayihiin afartoodaas oo iska maraya suuq oo iska adeeganaya baa niman mooto wata u yimaadeen kadibna way toogteen hooyada iyada iyo aabaheed baa meeshii ku dhintay hooyadeed iyo walaasheed waxa naf lahayn baa gaadhay laakiin iyada iyo aabaheed ba isla goobtiiba ku naf bixeen nimankii markay dawladdu soo qabatay maxkamad la saarayna markiiba waxay horey ka qirteen in ninkii iyada furay uu ka dambeeyay arrintan qorshahan dhan isagu diyaariyay lacagta isaga uu nimanka siiyay iyo hubka intaba una soo shirqolay oo sheegay meesha laga heli karo iyo wax walbaba 16 bishii 12 2013 baa maxkamaddu waxay ku xukuntay ninkii gabadha qabay horey u qabi jiray iyo nimankii dilay reerkaba dil toogasha bil kadib taariikhdu markay ahayd 22 bishii 1 2014 maxkamaddu waxay kansashay dilkii xukunkii dilka ahaa ee nimankan lagu fulinayay xayle hooyadeed baa waxay ka tanaasushay dhiigii ninkeeda iyo gabadheeda iyadoo ka doorbiday in yaroo lacaga mar labaad inay qaadato oo diya ah subxaanallah ninkii gabadheeda iyo ninkeedaba dilay bay waxay ka qaadatay in yaroo lacag ah oo diya ahaan u siiyay hanti adduunyo waxa ma sheegto in yaroo lacag u siiyay mar labaad laalushay kadibna waxay ka tanaasushay dhiigii gabadheeda iyo ninkeedaba iyadoo maxkamadda ku tiri ninkan waan iska cafiyay iyo nimankanba diyana iska qaadatay runtii hooyo lama dhihi karayo maxaa yeelay ma garanayo waxaan ku magacaababa markii hore gabadheeda inay ninkan iyadu markii horeba afka u galisay dhibaatadan iyo waxan oo dhan iyadu inay ka dambeysay dilka ninkeeda iyo gabadheedana inay iyadu sabab u ahayd markii la dilay kadibna meesha ay ninkeeda iyo gabadheedu xaqeeda looga qaadi lahayo maxkamaddu uga qaadi lahayd inay ka tanaasushay
khiyaanadu sideedaba wallahi waa wax aad u xun qof walba ku dhacdaba ama ay qabsataba laakiin khiyaanada banaanka kaaga timaada waad u dulqaadan karaysaa ama waad u babacdhigi karaysaa marka aad haysatid tiiraad ku tiirsato oo ah qoyskaaga dadka ku xiga markaad haysatid garab waxaad u dulqaadan karaysaa culays walba iyo khiyaano walba oo banaanka kaaga yimaada laakiin marka banaanka khiyaanada kaaga timaada ayba ka weyntaa gudaha khiyaanada kaaga timaada hooyadu waa qofka ugu dhow ilmaheeda ilmaha ubadka ma jirto wax hooyadii uga dhow marka hooyada markay ku khiyaanto gabadha waxay noqotay dharigii labada dhinacba ka gubtay tan kale damaca faraha badan meel xun buu ka tuuraa hanti adduunya waxa ma sheegto qof aad isku dhowdihiin ama aad saaxiibatiin ama ku aaminsan wax lagu waayo ma ahan marka laga tagaba ilmahaaga wax lagu waayo ma aha iyo ubadkaaga hanti yaro adduunya inaad dhaafsatid tan kale waxay tahay jacaylku weligiiba khasab ma ahayn jacaylku khasab ma aha ma khasban kartid jacaylku waa xornimo haddii ay gabadha la yiraahdo Ghazala ninkan ay jeclaan lahayd oo jacayl u hayn lahayd wax walba uu yiraahdo ka tag ama iska daa markaba way ka tagi lahayd qofku isagoo aan ku jeclayn baad jacayl ka keensan karaysaa oo ka kasban karaysaa tan kale qof aad marka horeba ku guursatay ood ku raacday ood ku dooratay oo dadka kaga xulatay isagoo wax sameynaya wuxuu doonaba ha ahaado ama heesaa ha ahaado ama actor ha ahaado jilaa ama wuxuu doona ha ahaado qof aad markii horeba waxa iyo hawsha isagoo ku jira aad ku dooratay ha isku dayin weliga qasab inaad ku bedesho marka koobaad qofna qasab laguma bedelo wax walba waxa lagu bedelaa naxariis iyo tartiib iyo waano iyo wacdi iyo tan labaadna qofkan markii hore dooranaysay kumaadan dooran isagoo sheekha maadan dooran waxaa dooratay ood guursatay isagoo fanaan oo masrax saaran marka naagtu iyadoo fanaanada oo masrax saaran intuu jeclaaday uu ka guursaday wuxuu doonayaa 2 maalin gudahood inuu khasab maaragtay uu kaga saaro fanka almuhiim haddaan halkan isla soo gaadhnay oo sheekadan dhamaysatay waan kaga mahadcelinayaa muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto oo nooga mid noqoto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama jecesha channelka inaad ka aragtid qaybta hoose faalada noogu reeb wayno muuqaalka kan xiga insha Allah nabad iyo caafimaad baan idinka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh